Qaar ka mid ah meydadka dadkii shalay lagu laayay deegaanka Buulamareer ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa la soo gaarsiiyay magaalada caasimadda ee Muqdisho kadib markii shalay ciidamada ADMIS ee nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ay dadkan shacabka ah rasaas iyo gowrac iskugu dareen xilli ay ku sugnaayeen beertooda sida ay sheegeen dadka deegaanka. ADMIS ayaa dilkaasi u geysatay 4 ka mid ah dadka deegaanka iyadoo qaarkood ay carareen isla markaana ay lugahooda ku baxsadeen. Mid ka mid ah oo ay kaga tageen inuu geeriyooday ayaa markii dambe waxaa la helay isagoo qaba dhaawac halis ah. Qaar ka mid ah dadka ehelada oo warbaahinta la hadlaya waxay sheegeen inaysan aasi doonin ilaa iyo cadaalad ay ka helayaan. Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayay ka dalbadeen inay cadaalad u raadiyaan. Bismillah, alxamdulillah wa thanaa lillahi wa salaatu wa salaam ala rasuulillah ma ba'd. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Waxaan cawasho ka nahay AMISOM. Waxaanu cabanaynaa dowladda federaalka, dowladda koonfur galbeed, rag dhalinyaro ah oo beeraley ah, beerahooda tacbanaayo. Dil waa dhici jira, xabad la isku dhufto, la is dilo waa arki jirnay, wax hadda bilaabanayo maaha. Laakiin rag dhalinyaro ah qaarkood aan guursanin in la gooyo seef loo qaato la jarjaro qaar la ceeji lagu dilo horta yacni ayaan darro waay. Dowladda federaalka iyo dowladda koonfur galbeed waxaan u sheegaynaa arrintaas raggan la laayay in cadaalad loo helo. Cadaalad in loo helo mana duugeyno ilaa cadaalad loo helayo. Shacabka Soomaaliyeedna taas dhammaantood way wada qabaan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Bulshada dhammaanteed meeshaan isugu timid qaybaheeda kala duwan. Waxaa maanta meeshaan isugu nimid dhacdo yaab leh oo xanuun badan. Rag shacab ah oo beeraley ah beerahooda iska qodanaayo oo Buulamareer ay ku laayeen nimankan AMISOM oo dalka Soomaaliya joogo oo arxan darro u dilay iyagoo beerahooda wardeysanayo. Waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Dadka dhinta Allah u naxariisto, Allah u naxariisto, qabrigooda khayr Allah ka siiyo. Waxaan rabnaa dadkaas la dilay gardarrada lagu dilay beerahooda lagu dilay inay cadaalad helaan, ayna ka helaan dowladaha dalka xukumo, hadday ahaan lahayd dowlad federaal, hadday ahaan lahayd dowladda koonfur galbeed. Dadka dadaa ka mas'uul ah, xoolo ma ahan, xoolaha hataa naftarkooda dadaa iska leh, duwaag ma ahan, duur ma joogaan. Qof beertaada tacbanaysa gurigeeda joogto in lagu tago lagu dilo, si arxan darro lagu dilo, seef loo qaato la qalo la jarjaro, wax loo dulqaadan kara ma ahan. Meedadkaas baabuurkaas saaran waxaan u wadnaa Fadanjeer, waxaan geynaynaa isbitaallada ay yaalaan Fadanjeer halkaas ay sida la dhigo ilaa cadaalad ay ka helaan ma duugeyno mana duugi doono. Dowladda adduunka meel laga warqaban male. Waxaan jecelnahay warbaahinta inay codadkan si fiican u deeyaan, ay caalamka la socodsiiyaan, ay dowladda federaal ay gaarsiiyaan dowladda koonfur galbeed, maamulada gobolka Banaadir ka jiro, kuwa gobolada ka jiro. Sida Soomaaliya hadday saan raali iskugu tahay, Soomaaliya iyadaaba quus joogto. haddii kale waxaan doonaynaa in cadaalad la helo, dadkii dhibkan geystay sharci laga saaro, meel laga saaro, la soo qabto, nagala qabto. Intaasaan doonaynaa. maalin kastaana dadkan la dilaa, mar maahan, laba maahan, 3 maahan. Dhacdadan waa nagu soo noqnoqotay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Bismillaahi raxmaani raxiim. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. Amaa bacd. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Maanta waxaa halkan iskugu nimid dhacdo ka dhacday Buulamareer. Raggii lagu laayay AMISOM ay ku laaysay ayaa mataqaanaa halkan iskugu nimid. dhibaatada ka dhacday nin walbana waa u jeedaa. Rag waa la dilaa. AMISOM waxay dishi 4 rag intay dishi haddana hilbahooda jarjartay. wax loo adkaysan karana maahan, wax loo adkaysan karana maahan. aad baan ugu xunnahay. midda kale labaad waxaa idin leeyahay anaka waxaan nahay muxuu ahaa 2 dowladood dhexdooda ku dhammaanay haddii shicib baan nahay, federaalka iyo koonfur galbeed. dhacda hadda kore ka dhacday oo Shabeellaha hoos ka dhacday 7 rag lagu laayay oo gaaladan ay laaysay aan waxba laga qaban. tii labaadoo haddana tan dhacdadan waa tii labaad. inta la qaliya haddana la jarjaray. mid la qaado karna maahan, mid aan qaado doonana maaha. haddii shicibkii aan nahay mid aan qaado karno amba qaado doona midna maahan. muxuu ahaa
anakiina waxaan rabnaa inaan raggan cadaalad ay hesho ayna ka hesho dowladda federaalka iyo koonfur galbeed intaba waxaan rabnaa waxaa u sheegaynaa dowladda intii anaka cadaalad aan ka helno raggan cadaalad aan u helnane ma aaso doono mana aaso doono weligeedina faranjeero ku jiraa doona hadduu ilaahay raalli ka noqdo ilaa cadaalad aan ka helno waxaana cadaaladdaas ka sugaynaa alla ka soke dowladda federaalka iyo koonfur galbeed ayaan ka sugaynaa cadaaladdaas ma aaso doono mana aasayno rag waa la dilaa laakiin jarjaritaanaan noo dhinnaa mid aan qaada doonana maahan haddii shicibka soomaaliya aan nahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا الله سبحانه وتعالى مهدنا قانا بعد المهدنا إلهي صومالي ميل كستور ودد الإيد بد ما يبغى معنا السلام أنا تنكلك حقد ما لنا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون. sadama booman asiin baragaasan odayaalkii hortay hadalleen aan sheegano aan cadeeyeen dadkii masaakiin tahay shacab weynahay beeralaydahay oo beerasho may booman amisom intii in kaseeti may booman kabareyti yamay booman cabasho ogeysis qayladaan antaba ku ana warlaqa bixiisa male may baaba ma arne tabashan ana ilaahay ku sokow lamada maamulo may booya ma arne odayaasha oo horeeyay sheegan dawladda federaalka Soomaaliya oo aan ka horeeya madaxweynaha dalka mudane Xasan Sheekh Maxamuud gudoomiyaha baarlamaanka mudane Sheekh Aadan Madoobe wasiirada xildhibaanada dhammaan Soomaaliyeed yamay booya ma arne bishaagada baagana ka wajahani cabashadaana ka wajahanta tan kale maamulka koonfur galbeed state-ka madaxweyne Cabdisiis lafta gareen may booman aan ka horeeya macal wasiiradiis xildhibaanadiis dhammaan intiiba may booya ma arne oo Soomaaliba oo jir may booman naxaw bale diirnax le ya baaqana may booya ma ka wajahani dulmi may booman dadkaana la ka dhamaay la ka baray wal galab sadeen ma lahayna amisom walka ogaay inay oo marna baabuur dad oo dadka dardarsiido baabuur fariinga la kuwaay may booya mana erto marna sheegasho ka dhigata inay madaafiic dadka hoggaamiyado may bama shacab meel kasta roogda ka helaagta shabaab ka aalanay may booya mana ka galdan eraan walka ogaay dhaqan aan la hayti laakiin dhacdadan dhacdo oo marna ugu baa inay dad masaakiin beeraley beerojo waardiyeysadaayaan aan ka seeta habad leen ka dhowna may booya mana la bareey كلي ما يبغى ما أرنا إيش هذا غلط ما وقال أو ما يبغى ما أنا كنت لقال أو ما نقبة لنا ميت كان فرنجير أن ودنا إلا إيو عدالة كهلونا ما أصدقنا إلهي ذي شيء ولا يوربحين أو ما يبغى ما أنا فالعلين جوابنا أو ما يبغى ما أنا وددي أو مرينجي هاي حق شيء أنتونا شاكني يا ما يبغى ما أرنا جوابتي كسوغانا منقبة Soomaaliya meel kasto roogtaan falalka noocan shacabka la ka xasuuqa may boo eediyada hananagadi amisom hadii bas sida leebel oo may boo man xaal sheeyay dalkan inay roogtaan may boo man istaahil shema degdegna may boo man unkuba tooyelana wal alla walaagi oo xuquuqe oo marna ishaga dadkuna hadii wadna meedio kor surugna intii oo ku horeeytay intii ku dambeeyay doonta dhaxdiyo maalinkaas tii isku dhamaayahay inay xuquuqdii oo la helo marna diyaarangana meedkan farinjeera may boo mana giliyo hayna aan wadna ilaa iyo marna balka jaroy sanadka jaroy may boo marna dadkii diliya aan aasinya may boo mana aan ka jara hada wa billahi tawfiq salaamu alaykum macnaha arrintan la yaab kale dadka inta bacay ku xiraa ay ku dilaan dadkan qaarkood ciidan lagu dilay صح bacaa lagu xiray صح bacaa lagu dilay صح intaas ku dar marka okay sida warbixintana neesiyo hayoona ka waramo hay dadkii goobjoogayaal hayaan mar ku sheekayaan deegahaytan ciidamada Uganda boolo mareer may booya ma arna ka tirsan qof intii la qobaday bacmadow madaga liingili oo may boo marna isaga markiina qaski ka dhagi uu soo barlaajay naftagu bahaasa haddana brees may booya marna seefliin ka dari intaasay cadaawtanimadaas timeelaas la ag wali oo may boo marna shacabkii Soomaaliyeed galab sidii ma ojiini hangi walkoom wili jeewa sameey jareen walku faylana ma ku sugaana
nabad ilaalin ma hayna may boo marna dishan nabad ku ilaaliyaala hayan Soomaaliya meel kasto roogdo colaadi iyo may boo marna bahdilka gudayn iska haytan may boo marna heldajo hel dhaafo elana mawjadaha uu iska fiiriyaan wal kuwiin ay marna naxaysadaan noo dhaxeeyaan dadkan oo may boo marna dulmaga la ka dhamaayna anta yaalangna oo farinjeerka ka wada dhaameysana cadaaladii oo Ilaahay lagu suge kusako may booyo ma arna shacabweynaha Soomaaliyeed dawladii maamuladii oo dhammaan may boo marna shanta Soomaaliyeed meel kasto roogta iyo may boo marna ku baahna waan ku fidhina illa jawaab ku helnoona hal qof uu diigu doono may boo marna ishaga